نبي الله إبراهيم أيها هجرودي isagoo ay la socoto haweenaydiisii Saara la oran jiray Saarina gabadh qurux badan bay ahayd waa nabi Isxaaq hooyadii iyagoo hijradoodii wata ayay ku soo baxeen meel boqorada ka mid uu ka taliyo boqor aad u dhaqan xun buu ahaa gobolka uu ka taliyo gabadh qurux badan haddii la arko waa in isaga loo geeyaa gabadh kastoo qurux badan boqorku waa inuu la seexdaa waa in loo geeyaa nebi ibraahim oo safara haweenaydiisiina wata haweenaydiisuna oo gabadh qurux badan oo Saara la yidhaahdo ayay meesha yimaadeen dabeetana nebi ibraahim baa gabadhii laga qaaday boqorkaa loo geeyey nebi ibraahim baa loo yeedho wuxuu ku yidhi man haadihi allatii macaka wartan kula socotaa maxay ahayd nebi ibraahim uu ka cabsado wuxuu yidhi waa walaashay dabeetana waa la soo daayay iyaduu yidhi keena nebi ibraahim iyadii buu la hadlay wuxuu ku yidhi na waa walaashay baan ku idhi haybeenini gabadh kastoo aroos u ninkani qaataa waxaan ku yidhi waa walaashay waanaad og tahay dunida meeshan aynu joogno maanta labadeennuunbaa wax muslima jooga innagunbaa walaala cid kale oo aynla walaalle ma jirto haybeenina sidaa adna yeel buu leeyahay adna waa walaalkay dheh waa loo keenay markii loo keenay ayay tidhi in yari sug waa weysaysatay dabeetana salaad bay tukatay dabeetana ilaahay bay bariday ilaahay maxay ku baryaysaa allahuma in kuntu aamantu bika wa birasuulik wa axsantu farji u fiirsa tacbiirka waxay leedahay ilaahayow haddaan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaagii rumeeyey oo farjigayga aan ilaashaday ninkayga mooyaane aan cid kale weligay taaban falaa tusallit calaya hada alkaafir ilow gaalka ah igu ibtilayna waa weysaysatay waa tukatay ilaahay bay bariday ilaahay waxay ku baryaysaa iimaanuhaa billaahi wa birasuulih rumayntay alle iyo rasuulkii rumaysay iyo dhowrsanideeda inay farjigeeda dhowratay oo aanay ninkeeda mooyaane weligeed cid kale arag ilaahu gaalka ah igu itixaamin bay tiri gaalkii baa suuxay markuu suuxay naftiisugu timi waa labadooda ayay istidhi hadday naftu ka baxdana soo la odhan maayo iyadaa dishay ilaahayow ha igu dilin bay tidhi illa waxaa ka baqaysaa hadduu dhintana in loo qabsado oo la yidhaahdo iyadaa dishay haddana ilaahay bay barido waxay tidhi ilaahu kici wuu soo kacay axmaq buu ahaaye markaasuu haddana isku soo maqiiqay war bal yara sug bay tiro waa weysaysatay waa tukatay salaad kalay gashay mar labaad bay ilaahay bariday markay ilaahay bariday intii ileg alle ku bariday haddana dib u suuxa naftu markay qabatay bay istidhi mar haddana waa laguu qabsan doonaa ilaahay bay weydiisatay inuu kiciyo waa soo kacay riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen mar saddexaad ba haddana isku dayay ilaahay bay haddana bariday waa miyir beela waa suuxay haddana ilaahay bay bariday inaan loo qabsanin ee uu ka kaco uu ka kacay mar saddexaadkii markuu arkay inaan waxba u suurtagal ahayn ayuu wuxuu yidhi shaydaamad bay noo keeneen dabeetana haajara nebi ismaaciil hooyadii ayuu ku daray wuxuu yidhi taasina ha kuu shaqayse kaxayso nebi ibraahim taana qaada buu yidhi weliba shaqaalaha kuu noqotee kaxayso waa haajara nebi ismaaciil gabadha hooyadii noqon doonta waa ninkan baa markaa soo siiyey ee nebiyullaahi ibraahim xagga kalena nebi ibraahim bay u timi oo wahuwa qaa'imun yusalli isna isagoo taagan oo ilaahay baryaya iyana way taagnayd oo ilaahay bay baryaysay isna xagga kaluu taagan yaho salaadu taagan yahay oo rabbigii baryaya in ilaahay haweentiisa uu badbaadiyo idan ayuha alaxibba waxaan leenahay haddaad rabto in ducada laga aqbalo waxyaabaha ducada lagu aqbalo waxaa ka mida markaa dhowrsanida farjigaaga uu dhowrsanaaday nebi yuusuf oo wiil qurux badan ahaa laakiin saynu naqaano la tuuray walaaladii god ku rideen dabeetana
wala socotay heshay ay iibsatay boqorka laga iibiyey gurigiisii imraatul aziz loo geeyey nabi yuusuf markaa gurigu ku nooliyey ninka meesha maamula gurigiisii gabadhuu qabay oo culimada tafsiir ay yidhaahdaan gabadh qurux badan bay ahayd suleekha ay sheegaan magaca oo ay qurux ku tilmaamaan ayaa nabi yuusuf hunguraysay nabi yuusufna wuu ka dhowrsaday hunguri qura maaha waxay isku dayday inay dalabto weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso waqallaqat alabwaaba baa ilaahay yidhi albaabadoo dhan way xidhxidhay waraawadatu alatii huwa fii baytiha raawadatu waa doondoontay baa la yidhi almuraawada sika waa xodxodatay si kastoo ay u heli lahayd waxaa kaloo la sheegay waqallaqat alabwaab albaabadana way xidhay lama odhan qallaqat waa xidhxidhay intay adkayn karaysay oo meel uu amni dareemi karayo ayay hagaajisatay kadib baa waxay ku tidhi hayta lak soo dhow adaan diyaar ku ahay bay leedahay inta badan way adagtay gabadhu xataa hadday xumaa doonayso inuu iyada ka soo baxo nolosha caadiga ee la yaqaano gabadha xishoodunbaa ku jira inta badan raggaa hunguri badan oo waxa kani ka yimaada laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadiioo cagsiya qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya oo gabadha lafteedii markaasuu diiday gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyadaa sayid u ah waa addoonkeedii dhanka kale markaad eegtana waa qariib inta badan qariib kuma xishoodo meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad sodhanaysaa dee malaa waad fasaxan tahay laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad siro dhudhubayaad ceeboobin baad is leedahay cidlada laakiin lama ceeboobo socankaa maaha ama meelaan cidibo kaa garanayn markaad joogto lama ceeboobo nebiyullaahi muusa nebiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo abihiiyo reerahoodii waa laga keenay meelaa cidina ka garanayna uu addoon yar ka yahay buu joogaa meeluu addoon ka yahay waan cidi garanayna buu joogaa waa dhallinyaro qofku markuu dhallinyarada yahay iyo xooggii soo dhabi jooga waa ma guursan reer ma leh oo ninku hadduu reer leeyahay de waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer ma leh idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxaa yaalla dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zino ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyaro waa addoon oo magaca ilaashan maayo markaa nolosha caadigaa loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leedahay iyaduu sayid u ah guri cidlaa bay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibnulqayim ilaa 15 masalo u tiriyaayo uu leeyahy waa dawaacu zina baa qisada tan ku jira laakiin muxuu ku jawaabay qaala macaada allahi inahu rabbii axsana mahwaaya inahu laa yuflixu الظaalimuun wuxuu ku jawaabay qaala macaada allah ilaahay baan ka magan galay buu leeyahy waxaad sheegayso macaada allahi inahu rabbii axsana mahwaaya inahu laa yuflixu الظaalimuun ilaahay baan magan galay rabbigay meesha way wanaajiye ظaalimkuna ma liibaano mufasiriintu tafsiir labaad bay saaraane waxay leeyihiin waxa uu isna xurmaynayaa ilaalinayaa ninkan abaalka ku leh waayo ninkani markuu soo iibsaday wuxuu ku yidhi wiilkaa ilaali buu ku yidhi saa suuradda ilaahay kaga warramaya akrimii mahwaahu meeshaad dejinaysa iyo waxaas hore karaamee buu ku yidhi markaa odaygaa guriga keenay oo kala dardaarmay reerkiiyo gabadha in ninka kan si fiican loola dhaqmo idan wuxuu leeyahay nebi yuusuf abaallaawo ma ihi ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto inaan xaaskiisa u weydaartaa innahu rabbii buu leeyahay innahu rabbii waa kii ii barbaariyey oo axsana mahwaaya akrimii mahwaahu atii uu yidhiye
وأحسن مثواي بولي دجان كي جنفي عنيسيي مر نبض ظلمي ما يبولي إنه لا يفلح الظالمون. إذا النبي الله يوسف وحي إلهي تصالى قرآن كوغل لجي تصالى شواوين النبي يوسف لينوغ الصوصية كم التهي عفضة ولي بعفة اللسان هي عفة الفرج لبدا النبي يوسف على صور نغلنيا ولا الذي سوحي له كسمي يلي توبوها إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل إلهي وحده فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له حتى إنه كويل هذا وردك توجا وكعشاض عفة اللسان عرب كيسور دوري هل كنا فرج كيسور دوري مركا أركتي إن أنا أقولين أيوة حيسكت ضيدا إن كفصته إن حوكته أرنكو هيت لك سودا في مركان حوك بمريا وحيسكت ضيدا إن حوك هو قبطه حل كلام مركا مو هيو وعرر عكتو معين بيضا إنه أرضه أو بحصدو يسكت ضيدا يسكو أرديه يناي إريسو ومرضى النبر كايد الله عسي أيه أضيق جوري لها كل من البابك مركا البابك كل منا أرنتي بوي ركتو حيتري ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم ومحي أبا المركا بيتري إنك الريركا قحمها الله دوري إلا حره boqorka wadanka ama madaxweynaha wadanka haweenaydiisa lagu yiraahdo ama waa la ciyaaraysa ama waa lagu xidhayaa hadduu boqorku xidhana saad uga soo baxaysa cid garan mayso haddaad boqor xabsi kugu rido si aad uga soo bixi doonto iyana wax la garanaya maaha halkaa markay joogto nebi yuusuf rabbi buu ku noqday ilaahay buu baryaya muxuu ilaahay weydiisanayaa رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يدو فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بيتي ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن هدي وحا رماه السمين ويبي إلى دوال حدي كو اللي دلينا وكم النغل هدي له هذا حبسي إياك للدورة هذا ما هذا مركب دول كودا مريء إسكده هل كان واحد شوكته حبسي إيوه قيس كبورتويا غير الله توماتات كلا دورة نسا نبي يوسف مركب أنا حبسي ودورت إن الرب عاصيه أيها وحول بكحم بولي سادر هذا دحلي رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إله حبسك أيها أكتيد لقاك القاع البداية وحي ويريا إن أنا حبسك قالوا أيها كرم بولي إلهنا سبحانه وتعالى وحط المام يا مرك ولي بوحد وإلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن وأكون من الجاهلين إلى أو هداند مكر جود يا خيام جود يا نجرت هذا هداند أضوي يدافنين وإلك ده يقول يا آخر هداي نعضتها سنة وحمقرتها كبيرة يا جاهلة قف كستو إلهي عاصية جاهلة جهله معلومات كماها علمه معلومات ماذا حاجة كتير ماها علمه وارد سنة وانت أتكون غلطة علمية انت تربي كل وين يهي يا محارمتي سكت كجاب سنة يسوع يا إلهي سبحانه وتعالى وحني معك السيئة أنا دواء بالقدينين أد مع سيدي سكو سمايس سادر هذا النبي يوسف عليه له حبسك أيام نام وحي ويريان هدي أنا ضدوي دورنا واتشبيا إلهي وحلي فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إلهي الدعاء بك أقبله دعاء مركو لقى أقبله محل له سمي حبس قال لك إذا الدعاء لقى أقبله وامحي حماها هي حبسك حماها حل مركا كان حبسك يعني واحل وحماها سا إلهي سودا فيه دبتنا حبس على كان حبسك إلهي سيدا فيه يوم حلقة دقي مضح الله وكان نقضي وزير كوضك كتليه لا مركي دبي قاعدي ودور سوري ودور سنة طريقة كانتي أفرتي